dowladda Turkiga ayaa dhisaysa dhismo cusub oo lagu soo korinayo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Dhismahaasi oo ka kooban hotel, baakina baabuurta la dhigto iyo goobo ganacsi si loo sii hormariyo wax soo saarka garoonka. haddaba maanta munaasabadii lagu daahfurayay ayaa lagu qabtay garoonka aadan cadde waxaana goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda duulista hawada ee dowladda federaalka, safiirka Turkiga u jooga iyo marti sharaf kale. ugu horeyntii Older Bakar, safiirka Turkiga u jooga Muqdisho, ayaa sheegay in garoonka isbedel uu ku yimiday tan iyo wixii ka dambeeyay markii Turkidu ay gacanta ku dhigtay. waxaana uu sheegay inay haddana Turkidu ay diyaar u tahay inay hormariyaan bilicda caasimadda gaar ahaan garoonka Muqdisho. Sonra yapılan yeni terminal binasına giriş arasındaki farkı yaşayanlardan biriyim. Airportka sidiisaba waa wejiga dal walba. Qofka markuu wadan galayo waa meesha ugu horeysa ee wadanku ka soo galo waa airportka. sidaas daraadeedna ayuu muhiim u yahay. aniga waxaan goobjoog u ahaa oo aan arkay airportkan 2012kii qofkii imaaday wuxuu arkayay iyo hadda farqiga u dhaxeeya waa goobjoogan u ahaa. Şu havalimanının altyapısı çok daha gelişmiş bir gelişecektir. Terminalka oo airportka ee la dhisay markii la dhisay kadib waxaan arkay waxa waaye falcelinta ama feedback oo positive ka ah ee shacabka Soomaaliyeed ka yimid. waxaan rajaynayaa mashruucan hadda hotelka marka la dhameystirana mid lamid ah feedback ama falcelin oo positive inay ka imaan doonto oo aad ay u soo dhaweyn doonaan. wasiirka wasaaradda duulista hawada ee dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Omar oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhismahan garoonka uu bilic iyo dhaqaalaba ku soo kordhin doono, isagoo sheegay in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay shaqo abuur u noqon doonto. hotelka wuxuu abuuri doonaa shaqaaleyn dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka wax soo bartay. dad tiro badan ayaa hotelkaasi laga shaqaaleyn doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. waxaa kaloo ku jira parking, waxaa ku jira dukaamadaasi ma laha shirkadu ma lahaan doonto, dowladda Soomaaliya ayaa iska lahaan doonto shopping mallka ay shirkadda ay dhisayso. dhisitaanka la dhisay hotelka naftiisa dowladda waxay ku yeelan doontaa saameyn sida uu xakaam markii ugu horeysay uu ka dhawaajiyay. hotelku waxa weeyaan way dhisayaan, way operate gareynayaan, muddo ayay wadayaan, kadibna dowladda ayaa lagu soo wareejinayaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.